kusoo dhawaada maqaal cusub oo aanu ugu magac darnay sidee madaxweyne Farmaajo oo bad qaba uga bixi kara Villa Soomaaliya. Dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan waa maxay sababta aan hadda uga hadlayo badqabka madaxweyne Farmaajo. Sida ala socotaan doorashada dalka ka dhacaysa 2020 waxaa ka dhiman 9 bil marka laga soo bilaabo October 2016 oo ah markii ugu horeysay ee senator la doorto. Sidaas ay tahay wali sharciga doorashada lama sameyn, dastuurkii waa qabyo, iskuma fiicna madaxweynaha iyo dawlad goboleedyada. Arrimahaas oo dhan marka waxay keenayaan in madaxweynuhu aanu kalsooni buuxda lagu qabi karin inuu wax qaban karo 2020 iyo inta ka dhiman. Taasa marka keentay in maanta aan ka walwalno badqabkiisa iyo inay muhiim tahay in madaxweynaha markuu xilligiisa u dhamaado doorasho inuu qabto dadku ay wada arkaan oo hufan isla markaana uu xilki u wareejiyo iskana tago. oo waliba ani waxaan kula talin lahaa in aanu isa soo sharaxin taasi oo wax badan ka bedeli karta badqabka madaxweynaha.